السلام عليكم. آدي آدان ugu faraxsanahay horta caawo si sharaf leh in aan iskugu imaanay xafladaaneyti aan ku qabanay Brian Coyle Center iftaarka afurkaaneyti sanad kasta aan suubinay sidii la ii doortay meelo kala duwan oo districtiga aan matalo aan ku kala suubinay sanad kasto alxamdulillah waxaan fursad u helnaa in muslimiin kala duwan iyo dad aanan muslim ahayn oo communitygeena ka mid ah inay nogala soo qayb galaan dadka muslimiintana aan u faa'iideyno oo afur ay helaan waqtina isla qaadano dadka muslimka aanan ahayn dhaqankeena iyo diinteena iyo dadkeena sida ay yihiin ay u dareemaan Ramadan kasto hadda waa Ramadan muhiim ah waa mid aan sugno sanadkii oo dhan waa bisha ugu ajirka badan oo annaga hadaan muslim nahay aad aan u jecelnahay ama ha ahaato afurka familkeena isla suubinayno asxaabteena aan u waceeno qaraabadeena aan la afureyno ama ha ahaato fursadda ay noo suubinaysa in diinteena aan si adkaysano taraawiix aan dukano tahajjud aan dukano taasna ay noo ogolaanaysa in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weydiisano cafis dadka walaalaheena aan u duceyno oo dhiban midda kale Ramadan uu muhiim u yahay waa waqti aan ku qasbannahay in aan isdareensiino dadka walaalaheen sida ay u dhiban yihiin qof kasta qof uu dhaamaa aabahaysaas uu dhihi jiray markaan yaraa qofba qof buu dhaamaa waxa laga yaabaa adiga maanta hadaad afur iyo casho isku heshay dad inay jiraan oo afurna aan heli karin cashana aan heli karin maanta hadaan annaga nabad ku afurnay dad jiro nabadaas aanan haysan caaw hadii waqti aan u helayno ama fursad aan u helayno waqti fursad hadaan u helayno inaan masaajid oo hal blog noo jiro aan u lugayno dad loo diidan yahay inay masaajid tagaan oo muslimiin ah in ay jiraan adduunyada laga yaabaa annaga hadda maanta caafimaad hadaan ku noolnahay oo aan ku soonnay qof jiro aan soomi karin caafimaadkaas aan haysanin dada xabsi ku jiro dada dhimasho sugooyo dada dagaal ku dhex nool sida walaalaheen qasab rafaadka haysto kaleete walaalaheen Suudaan dhibka ay ku jiraan walaalaheen Ethiopia dagaalka ka socdo walaalaheen Republic of Congo oo iyagana dagaal ku dhex nool walaalaheen oo muslimiinta ah oo Uyghurska oo China aanan helin masaajid fursad ay ku tagaan ama diintooda ay ku sheegtaan inaan dhihi karin aniga muslimaan ahay Rohingya oo kale taasoo kale Burma ama Myanmar sida u taqaanid waan dadaanan fursad u haysanin in masaajid ay tagaan ama ay isku imaadaan in ay dukadaan marka waan ku qasbannahay annaga muslim hadii aan nahay dadkaas inaan xasuusano waan ku qasbannahay inaan xasuusano walaalaheena Soomaaliya ku nool oo al-shabaab argagaxiso ay ku hayso in rafaad ku nool kulligood in aan ka walwalno aan ka fikirno waan ku qasbannahay muslimiin hadii aan nahay walwal waa mid waxaan kale ku qasbannahay inaan u duceeyno in ducada anaga akhrisanayna iyagana aan ku darno ilaahayna aan u weydiisano in maxaa la dhahaa ii sheeg dhibka ay ku sugan yihiin in dheef uu ugu bedelo dhibkan adduunyada aan arkaynana aan ka duceyno hadda inay yaraato aniga markasto waxaan ka shaqeeyaa sidii cadaalad iyo maxaa la dhahaa ii sheeg adduunyada ay cadaalad uga shaqeyn lahayd dagaaladaanayti badanna maalin kasta aan aragno meel kasta ka socdo sidii lagu joojin lahaa dadka badanaa waxay dhahaan ilaahan haddaan waxyaalaha aan lagu dirsanin aadan ka hadlin dhibkaaga wuu yaraan lahaa laakiin waxaan u maleeyaa aniga wax la ii dirsaday inaan ka hadlo in shaqadeeda ay tahay bini'aadamnimadeeda ay ku xiran tahay in diinteeda ay ku xiran tahay in cadaalad darada ay qasab igu tahay in aan ka hadlo hadii ilaahay uu fursad ii siiyay in maanta aniga jaga aan haysto anigoo qof muslimad ah oo ku nool hadee wadan aan xur u leeyahay in aan sheego wixii qalbigayga ku jiro ama wixii sax ila ah oo aanan uga faa'iideeyo jagadaas aan haayo dadkii iyo diintii aan muhiimka ii ahayd marka waad wada mahadsantihiin dhammaantiin sida maalin kasta aad iigu duceysiin sida maalin kasta aad ii garab taagan tihiin sida maalin kasta aad iigu soo dhaweysiin sanadkan waxaan u malaynayaa
tartan aan ku jirnaa aniga tartan aan ka walwalsanahay ma aha because waxaan u maleynayaa waa tartankii koowaad oo xaq iyo qalad lagu kala jiro waa tartankii koowaad oo aniga haddii aan ahay qof congress fadhiyo oo aan aaminsanahay dhinaca taariikhda saxsan in aan ka shaqaynayo cadaalad aan u shaqaynayo in dad masaakiin la dilo aan ka shaqaynayo in annaga lacagteena tax dollarka aanan lagu dilin dad masaakiin aan ka shaqaynayo dadka ila tartamayana ay leeyihiin dadka dilooyo xaq leh dadka dilooyo aan u baahannahay in aan hub siino dadka cuntada u diidooyo aan u baahannahay inaan lacag siino marka waxaan u maleynayaa hadde tartankii ugu fududaa in uu noqon doono waxaan aaminsanahay sida aan u ognahay 80% inta dad aan matalo inay rabaan ceasefire waxaan ognahay 80% dadka aan matalno in ay cadaalad rabaan 80% dadka aan matalno in aynan rabin lacagtooda in loo diro Israa'iil dad masaakiin sidii ay u disho marka alxamdulillah waxaan u maleynayaa 4 sano ka hor iyo 2 sano ka hor waa dadkii ka xumaan jiray markasta oo Israa'iil waxaan ka sheego iyaga maanta inay la dhulmanayaan waxoodii oo annagana aan dhinaca cadaaladda aan taagannahay marka insha Allah waxaan filanayaa in idinkoo dhan hadee maalintii doorashada ay imaataan idin wada arki doono aad walaalihiin u sheegi doontiin oo qaraabadiina aad la socodsiin doontiin sidii Minneapolis iyo 13 kale magaalo oo aan matalno dadkoo dhan ay u soo baxaan aan u wada gurmano marka waa ku mahadsantihiin caawa sida sharafta leh aad uga soo qayb gasheen waan ku faraxsanahay Brian Coyle inaan ka dhignay because wiilkayga markasta aan dhaho xafladahan ii raacmayo ii dhahaa laakiin Brian Coyle u soconaa markaan dhahay wuu soo raacay caawo ma ogi meel uu ku dhuuntay hadda stage-ka markaan qaad wuxuu ka cabsooday u maleynaa inaan farta ku muujiyo marka waa mahadsantihiin kulligiin Ramadaan mubaarak ciid mubaarak haddii aanan is arkin in ciid ka hor dhammaan aad iyo aad aan idinkaga mahad celinayaa sida sharafta leh caawa aan ogala soo qayb gashaan xafladaaneed mahadsan Thank you all for joining us. That concludes our program. Please eat, keep talking to folks, and I will see you at our next event.